xildhibaan Cabdulqaadir Maxamed Xasan indho oo kamid ah golaha guurtida Soomaaliland ayaa soo jeediyay in dalka laga saaro hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan cuntada adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyo WFP isagoo ku eedeeyay in ay tahay hagardaamada ugu weyn ee la dagaalanta wax soo saarka dalka sidoo hadalka u dhigay xildhibaan Cabdulqaadir indho ayaa sidoo kale sheegay in hay'adda laga soo ceydiyay meelo badan oo dunida kamid ah waxaan uu sheegay in dhibaatooyin badan ku hayso dhinaca wax soo saarka markasta oo soo go'o dalaga beeraha Soomaaliland iyaduna dhankeeda soo saarto raashinka kaydka gaar ahaan dalaga qaramada midoobay xusay in laga keeno dalka Mareykanka WFP leeyahay horta wadanka ay joogtaa ma hana qaado hay'adaasi waxay iibinaysaa qamadidii Mareykanka baxday iyo Hindiya iyo meelaha wadamada deeq Ilaahay baa deeq bixiyay ilaa deeq bixiyaan anu waxaan oran lahaa baasha ala jooji that means waxa weeye qofkii dadaalay ee wax beertay marka nin suuqa jooga la yiraahdo NGO baa tahay ama company baa tahay markuu waliba roobku daayo xoog inta loo keeno dadkii maskaxda laga gumaysto si uu ninkii aan moral u noqdo wixii uu beertay aan cidina uga iibsan wadankii doonayay inuu hore u maraa horta baashaas iska joojiya inagana sanadka inoogu xoog badantay xildhibaanka oo ka qayb qaadanaya dood ay golahooda guurtidu waxada 6 Oktoobar kaga hadlayeen dhaqaalaha dalka ayaa sidoo kale sheegay in talaabooyinkaasi ay qaado hay'adda cuntada adduunka ay dhabar jab weyn ku tahay dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka labadaba loona baahan yahay in la dhiirigeliyo waxaanu xukuumadda u soo jeediyay in bulshada Soomaaliland lagu wacyi geliyo in ay ku dadaalaan beerashada una iibsan lahaayeen dalagyada kala duwan ee ka soo go'a beeraha dalkooda sidoo hadalka u dhigay dhinaca kalena xildhibaan indho waxa uu ganacsatada Soomaaliland ugu baaqay in dalkooda ay maal gashadaan isla markaasna warshadaha wax soo saarka dalka ay xoog saaraan si looga maarmo waxyaabaha dalka dibadiisa laga keeno isagoo sheegay in ay taasi abuuri lahayd inuu dhaqaalaha dalku kobco isla markaasna dhalinyarada jaamacadaha ee sanad kasta soo baxaya ay u noqon lahayd dhiirigelin iyo shaqo abuur sidoo hadalka u dhigay ganacsatada haaway maanta wacyi gelinayna ganacsatada waxaan u soo jeedinaynaa lacagta ay dibadda u dirayaan inay wadanka geliyaan oo bariiska beertaan oo dhalinyarada jaamacadaha ka soo baxaysa baananku investment geliyaan kuwa beeraha bartay beeraha lagu xoojiyo oo kuwa xoolaha bartay lagu xoojiyo sanad walba 10,000 arday baa soo baxay oo waxa wada bartay maanta qaar xoolaha bartay qaar beeraha bartay qaar injineer bartay haddii aan cuntada wadaniga ah la soo saarin oo aynaan dhalinyaraduna shaqo ka helin inaguna aynaan hard currency kaga maarmin deebaashi way kharimaysaa marka anigu waxaan leeyahay war roobkii uu soo noqday ganacsatadana la hadalo xamse xir saxayd wararka laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika magaalada Hargeysa